doontii markii uu raacay oo ay gudaha gashay oo badweynta ay gashay ayaa meel kasta waxa ka timiday muujad iyo hir iyo dabayl markaas badii dhan baa kacday doontii waxay ku dhawaatay inay gadoonto dhowr mar dadkii doonta saaraan waxa la yiri xaalku waa adag yahay maxaynu yeelnaa markaas la yiri doonta culeys zaa'id ayaa saaran hadii sida ay ku socotana waa ay gadoomaysaa السلام عليكم صاحبيال سو دوادا ميل walba dunida caleed aad ka joogtaan waxaan rajaynayaa caafimaad qabtaan xalkiin uu bashbash iyo barwaaqo yahay ka warama maanta hadii aan idinkaga sheekeeyo qisooyinka uu quraanku nala wadaagay mid kamid ma ogtahay quraankan kariimka ee Ilaahay noo soo dejiyay ee maalin walba aynu akhrinayno inuu ka warramay in ku dhow 25 nabi oo Ilaahay uu soo diray Ilaahayna uu naga warramay wax alla iyo wixii ayaga iyo ummadahooda dhaxmaray ma ogtahay in nabigu nooga sheekeeyay ambiyooyinka Ilaahay uu soo diray iyo ummadihii loo diray wixii dhaxmaray uu nabigu nooga qisooday ilaa uu nabigu noo sheegay in qiyaamaha iman doono nabi laba qof la socoto nabi uu hal la socdo iyo nabi aan cidiba la soconba oo cid rumaysaba aanay jirin hadaba saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idila wadaago qisada mid kamida ambiyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunkan u soo diray oo tolkiisi u diray hadaba asaga iyo tolkii maxaa dhaxmaray soo dhawaada saaxiib halkan hadii aad ku cusub tahay halkan waa taariikh show waxaan aalab ku soo gudbinaa qisooyinka taariikhiga qisooyinka ambiyada saxaabada iyo guud ahaan taariikhda islaamiga haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe saar anaga wax bay noo taraysaa adigana waxba ku yeeli mayso channelkana meel fog ayay gaarsiinaysaa soo dhawow saaxiib mar kale hadaba saaxiibayaal nabiga maanta aan qisadiisa idila wadaagayo waxa loo yaqaanaa Yunus ibn Matta waana mid kamida ambiyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisii uu kaga warramay nabigan waxa loo diray dadkiisuna waxa ay joogeen meel kamida wadankan Ciraaq gaar ahaan gobolkan loo yaqaano Naynawa oo magaaladan Mosul yiraahdo ay ku taalo nabigan Yunus Ilaahay markii uu dadka u diray dadkii maanay soo dhaweynin sida quraanka in badan aad ku aragteen ambiyada marka loo diro ummaduhu soo ma dhaweeyaan inta badan waxaad ka warqabtaa nabiyullaahi nuux inuu 950 sano u dhawaaqayay oo laha war Ilaahay kaliya caabuda cidina aanay rumayninba ilaa aakhirkii la halaagay qowm nuux hadaba saaxiibayaal Yunus ibn Matta alayhi salaam markii Ilaahay uu diray rasuulkii lama soo dhaweynin dadkina waxay kala hor yimaadeen beenin iyo inay yiraahdaan waxaad sheegaysaa waa been waana ay ku jeesjeeseen waxana ay yiraahdeen war waxaad sheeganaysaa wax jira ma Ilaahay baa ku soo diray oo Ilaahay mu anagaba na diro hadii Ilaahay adiga kula hadlay kaliya anagana mu nala hadlo صاحب وابينيين دعووديسينا gaashanka ay u darooreen nabigeena kamuu daalina maalinba maalinta ka dambeys waxa weeye wuxuu ahaa mid dacwad u bandhiga oo kooda yarka iyo kooda weynba isku si dacwad ugu bandhiga laakiin ayaguna mar walba way diidaan dacwada ma qaataan ilaa uu xaalku sidaa ku socday dhowr sano oo sanado fara badan ayaa nabiyullaahi Yunus oo ahaa mid tulkii dacwada u bandhiga ayaguna ay ahaayeen kuwa beeniya oo mar waliba sida u soo taagan hadaba saaxiibayaal nabiyullaahi Yunus maalmaha kamida ayaa wuxuu u yimid tulkii oo isku soo baxay oo aad u faraxsan oo isku soo baxay oo meel asnaamtooda ay taalo inta isugu yimiday aad u baashaaraya deedna Ilaahay ayaa uu xasuusiyay dacwada Ilaahayna uu u bandhigay deedna mid ayaga kamid ayaa qayliyo wuxuu yiri waxaad u timiday maantay inaad farxadayda naga qasto waad ogtahay horaad u daashay inaan cidi warkaaga yeelayninna waad ogtahay Yunusow marka ma waxaad u timid maalintan quruxda badan aynu qaadanayno inaad naga halayso oo aad naga rabshadayso miyaad u timid waxaaga waa laga daalay cidna ka qaadan mayso deedna nabiga Ilaahay Yunus ambiyadu waa bini aadan marka waxa weeye xaalad adag ay la kulmaana mararka qaar culimadu waxay ku dhacaan wax la yiraahdo khilaaf al-awla arin sidii saxda aan ahayn ayay mararka qaar ambiyadu ku dhacaan ambiyadu waa macsuumuun oo Ilaahay baa ilaaliyay gaf iyo waxyaabaha si khata Ilaahay baa ka ilaaliyay hadaba saaxiibayaal nabiyullaahi Yunus markuu arkay inaanay nimankani aanay rumayninin maalinta ayada ah ayaa waxa uu yiri hadaba waxaad ogaataan hadii aad Ilaahay rumayn weysaan Ilaahay inuu idin ciqaabayo cadaabna cirkeeda kaga soo daadanayo 3 maalin gudahood dabadeedna nabiyullaahi Yunus waa ku xanaaqay aad buu u carooday ayagii dhamaana wuu isaga tagay doorka Ilaahay ayaa u qabtay nabiyullaahi Yunus markii uu reetolkii ka tagay waliba asoon Ilaahay uusan amrin oo waxay ku soo degin oo la oran isaga tag way ku beeniyeen ayaa uu isaga tagay kadibna meel xeeba ayaa uu tagay deedna wuxuu arkay doon baxaysa oo badda galayso doontii ayaa u raacay nabiyullaahi Yunus doontii markii uu raacay oo ay gudaha gashay oo badweynta ay gashay ayaa meel kasta waxa ka timiday muujad iyo hir iyo dabayl markaas badii dhan baa kacday doontii waxay ku dhawaatay inay gadoonto dhowr mar dadkii doonta saaraan waxa la yiri xaalku waa adag yahay maxaynu yeelnaa markaas la yiri doonta culeys zaa'id ayaa saaran hadii sida ay ku socotana waa ay gadoomaysaa sida daraadeed waxaanu ku qasbanahay inaanu rarkan doonta saaran qayb kamida aynu daadino deedna waxa la wixii alaab saaraa ayaa badda lagu qubay jilamada tuur loorka tuur culeyska daadi waxa la wixii alaabo ay doontaasi sidii oo rar aha ayaa badda la galiyay hase yeeshee doontii maanay degin oo wali sidii ayaa ay u kacsantahay sidii ayaa ay wali halis ugu jirtaa doontii inay badda gasho oo culeyskii wali sidii ayaa u saaran yahay meeshan arrin Ilaahi ayaa ka socoto nimankanina si fiican u maanay fahmin bilowgii sheekada riwaayadka qaar waxay leeyihiin
way garanayeen nimankan badda ka shaqeeyo hay haddii doonta uu saaran yahay ruux ilaahay u carooday oo ilaahay u careysan yahay inay doontu mararka qaar ay sidan samayso. haddaba saaxiibayaal ugu dambeyntii nimankii doonta saaraa mid ka mid ah ayaa waxa uu yiri warnimayow doontan way nala gadoomaysaa haddii aan culayskan saaran oo bani aadanka qayb ka mid aanu ka dejin wayno. kadibna waxaa la yidhi maxaynu yeelnaa? dabeetana waxaa la isku raacay wax la yidhaahdo in la qori tuurto. qori qodco maxaa loo qori tuuranayaa? qori qodcada maxaa loo samaynayaa? qof bini aadan oo doontan saaran baa la rabaa in badda lagu tuuro si culayskiisa uu doonta uga khafiifo, doontuna ay si caadiya ugu socoto oo aanay badda ugu maashoobin. dabeetna waa la qori tuurtay. markii la qori tuurtaba qori tuurkii wuxuu ku soo baxay nabiyullaahi yuunus ibnu mata calayhi salaam. dabeetna nimankii doonta saaraa oo qori qodcada samaynayay intii uu ninkani la socday nabigaahi way arkeen ninkani inuu yahay nin wanaagsan oo aad u fiican. dabeetna way ka sabri waayeen. markaasi waxay soo jeediyeen nimayow ninkani waa wanaagsan yahay aynu ku celino qori tuurka lacalla inuu qof kale oo annaga naga midi inuu ku soo baxa laga yaaba. ninkani waa nin aad u wanaagsan, ninkani uma qalmo in badda lagu tuuro. haddaba saaxiibayaal mar kale ayaa ay ku celiyeen qori tuurkii oo mar kale ayaa qori qodcadii la sameeyey. isla mar kale wuxuu ku soo baxay nabiyullaahi yuunus. dhanna uma dhaaftaba nabiyullaahi yuunus. mar saddexaad ayaa ay yiraahdeen war ninkani uma qalmee nimayo mar saddexaad aynu ku noqonno qori tuurka. mar saddexaad ayaa qori qodcadii lagu laabtay. isla markii saddexaadna wuxuu u soo baxay nabiyullaahi yuunus ibnu mata calayhi salaam. khalaas halkaan markii ay marayso nabi yuunus si riwaayadku ay sheegayaan asaga ayaa yiri waan idin salaamayaa nimayahow. sidaa ayaana uu doontii isaga tuuray. ilaahay quraankiisa waa kan kaga warramayo fasaahama fakana min almudhadin. uu qori tuurtay buu yiri waxaana uu ka mid noqday kuwa laga raayay. oo sidaa ayaa doontii uu isaga tuuray nabiyullaahi yuunus ibnu mata. doontii markii uu nabiyullaahi yuunus iska tuuray oo sidaa uu baddi ugu dhacay ilaahay wuxuu amray askari ka mid ah askartiisa ama ciidan ka mid ah ciidamadiisa in nabiyullaahi yuunus ibnu mata uu qabto waxna aanu yeelin. dabadeedna nibiri ama malaay aad u weyn ayaa yimiday. kadibna nabiyullaahi yuunus ibnu mata oo sidaa biyaha hoos ugu sii socda ayaa uu liq calooshiisa ayaana u dhigay. arrinta ilaahay quraankiisa ayuu kaga warramay faltaqamahu alxuutu wa huwa mulim. nibirigii ayaa liqay oo caloosha ayaa u geliyay. nabiyullaahi yuunus arrintani markii dhacday waxa uu maleeyey oo isu maleeyey inuu dhintay. markii uu arkay in malaay weyni ama nibiri weyni uu liqayo wuxuu isu maleeyey inuu geeriyooday oo nafti ay daysay. laakiin mar qura ayaa haddana wuxuu is arkay xubnihiisa oo dhaqdhaqaaqaya. aduu weligaa inta arrin xuni kugu dhacday ama argagax aad u weyn kugu dhacay ma ismooday mararka qaar in naftuba ku daysay naxtinta aad naxday awgeed. haddaba saaxiibayaal markii uu arkay nabiyullaahi yuunus inuu dhaqdhaqaaqayo oo xubnihiisu ay nool yihiin ayaa uu isdhaqdhaqaajiyey waana uu soo fadhiistay. haddii uu soo fadhiistaba waxa uu ku jiraa meel aad u mugdi badan oo aan caadi ahayn. nibirigii waxa uu bilaabay inuu la socdo oo badaha guntooda uu la aado. martaasi ayaa ula dhaqaaqay badaha ayuuna la dhex maray. taasoo kilomitir oo badaha ayaa uu sidaa ula jiiray nabiyullaahi yuunus oo calooshiisa ku jira. riwaayaadku waxay leeyihiin nabiyullaahi yuunus asoo gunta badaha maraya ayaa waxa uu maqlay tasbiix iyo makhluuq ilaahay u tasbiixsanaya. makhluuqaadka badaha ku jira iyo kuwan dhulka korkiisa saaran intuba waa addoommo ilaahay ayaanay u tasbiixsadaan oo ilaahay ayay maaragtay mar walba dikrigiisa hayaan. wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum. haddaba saaxiibayaal markii uu maqlay tasbiixda iyo makhluuq ilaahay maaragtay ammaanaya bartaa ayuu ka dhawaaqay nabiyullaahi yuunus ibnu mata calayhi salaam. deedna waxa uu bilaabay inuu ilaahay la hadlo oo uu yiraahdo ilaahayow waxaan kugu caabudayaa meel ay yar tahay bini aadan inuu kugu caabudo. meesha noocaas dee bini aadan weligii ilaahay kuma caabudin marka laga reebo nabiyullaahi yuunus ibnu mata. nibiri calooshiis bartaas inaad ilaahay ku caabudo arrin hore u dhacday maaha. nabiyullaahi yuunus ibnu mata kaliya ayaa meesha ilaahay ku caabuday. wuxuu yidhi ilaahayow waxaan kugu caabudayaa meel aan bini aadan hore kugu caabudin. waxaana u bilaabay inuu qaladaadkiisii qirto nabiyullaahi yuunus ibnu mata calayhi salaam iyo gefkii uu ku dhacay iyo ka tigitaankii uu ka tagay reetolkii ilaahay asagoo uusan amrin ilaahay buu u laabtay. ilaahay ayaana uu bariyay. markii halkaas uu ka calaacalayay nabiyullaahi yuunus ibnu mata calayhi salaam ayaa malaa'igtii maqashay. deedna waxay yidhahdeen ilaahayow cod aanu garanayn oo daciifa ayaan maqalnaa laakiin meel ghariiba ayaanu ka maqalnaa oo codkaasi meesha uu ka yeerayo ma ahan halkii uu markii hore ka iman jiray. markii hore malaa'igtu way garanayeen nabiyullaahi yuunus ibnu mata dhulka dushiisa ayaa uu joogay nabi ayaanu ahaa. halkaasi ayaana kalimaadka wanaagsan oo ilaahay uu ku caabudayo ay samada ka kori jireen. markaasa meel ghariiba oo badaha guntooda ah ayaa nabigan camalkiisu ka imanaya. markaasuu ilaahay wuxuu ku yidhi nacam waa addoonkaygii yuunus ibnu mata ahaa oo reetolkii ka tegey kadibna waanu ciqaabnay oo halkaas badaha guntooda ayaanu gelin. deedna riwaayadku waxay sheegayaan in malaa'igtii ay ka shafaaco qaaday oo ay ku yidhahdaan ilaahayow addoonkaagani wuxuu ahaa camal wanaagsan miduu ka yimaado oo adiga mar walba uu kaaga yimaado ayaa uu ahaa ee sooma cafinaysa ilaahayow. deedna ilaahay wuxuu yidhi haa waan cafinaya. deedna ilaahay wuxuu amray asagoo meesha ayadaa hoosaysa ku jira badaha guntooda ayaa waxa la amray xoodkii ama nibirigii inuu xeebta ku tufo ayaa la amray.
markii hore oo uu liqayana waxa la amray ninka la yiraahdo Yunus ibn Matta liq la fi maqaar toonana ha ka taaban liq baa la yiraahdo calooshaada dhig halkaana ku hay riwaayadka qaar baa waxay sheegayaan imtixaanka uu la kulmay waxa kamid ah nibirigii asaga liqay ayaa mid kale oo asaga ka weyn baa sii liqay nibirigii asaga liqay oo calooshiisa uu ku jiray waa mid kale oo ka weyn intuu yimid ayaa caloosha la gashay وكا dhawaaqay nabiyullaahi Yunus saddex mugdi dhaxdooda ka soo dhawaaqay la ilaaha illa ant subhanak inni kuntu min adh-dhalimin saddex mugdi dhaxdood ayaa nabiyullaahi Yunus uu ka soo dhawaaqay waa mugdigii habeenka iyo mugdigii badda iyo mugdiga nabirigi oo calooshiisa uu ku jiray bartaasi ayaa uu ka soo dhawaaqay ilaahayna waa uu ka aqbalay ilaahayna wuxuu quraankiisa ku yiri haduusan tasbiixsan lahayn oo nabiyullaahi Yunus aanu kamid ahayn kuwa tasbiixsada ilaa qiyaamaha laga gaaray wuxuu ku jiri lahaa nabiriga calooshiisa falawla annahu kana min al-musabbihin للبث في بدنه إلى يوم يبعثون هذا صاحب نبي يونس حال كيسو سيدا أيا أوها إلهي أيا إن بدن قرآن كيسو كغور رمي وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم مركي إلهي أو كتوبة أقبلي أسأقنا ماشاس أدك أهوسيس أو كسر لواقي أيا إلهي وحو أمري حوت كيبال أمري أما النبريجي أيا وحلويري حيبت كتور مركاسو حيبت كتور عراء فنبذناه بالعراء وهو سقيم ومال بنان وأن عذبت جوجن جيدنا أن لهينو بنانا أيا أو كتور مركاسا إلهي وحو أسمي جيد أيا أسلا مركي بهالكي وكسر نشي وأنبطنا عليه شجرة من يقطين جيد يقطين كوا جيد كان ليرهذا بعرك جيد كان بعرك لا أيا يقطين ليرهذا سيد المفسرين تو أيليهين جيد كاس علامة وين أيا أوليه مرنا وأوليه مركا إلهي أيا أوليه ديدنا عنتنا وأوكهلي هرنا وأوكهري وقرح ذا أيا كهرين يسي أي شيء يا مفسرين تو هذا بس حبيان وحكروا أي شيء عن روايات كقار إن إلهي أصود دري ناف أريا ودرجوج ناف كاسي أيو أنا كمال جري وأنا وكعب جري إلهي هلك وحكاية كان يو أسق أيا قرناي نبي يونس حالة عليك أيا أوقلي هذا بقى إن laabano maxaa ku dhacay qoomkii uu ka tagay nabiyullaahi Yunus dadkii magaalada Nayna waa joogay Ciraaq ku taalaamaantay nabiga markii uu ka dhaqaaqay kadib saddex maalin waa kii uu qabtay nabiyullaahi Yunus markii uu ka tagay oo ka maaratay caroonay waxa ku dhacay saddexdii maalin gudahood waxa ay dareemeen waxyaabo aan weligood arag xaalad adag ayaa ay galeen waxay arkeen xoolihii mawaashida xoolaha la dhaqdo arigii geeli lo'di oo wada qaylinaya oo aan joogsanaynin cararaya xoolihii horay gadaal u yaacaya oo argagaxsan oo aan fariirsan bay arkeen dadna waxay leeyihiin war waa maxay waxa dhacaya xaaladani midan garanayna ma wax yar kadib cirkii waxay arkeen daruuro aanay hore u aqoonin nuuc kala oo daruurtii aynu naqaynaba aan ahayn oo cirkii soo buuxisay ayay arkeen horena waxay u xusuustaan hadalkii uu ku yiri Yunus ibn Matta oo ahaa saddex maalin gudahood ilaahay wada ciqaabaya cadaab ayuu cirka ilaahay kaga soo dejinaya xaaladda markay ay arkeen ayaa kuwoodii caqliga lahaa waxay yiraahdeen wallahi arin xun baad sameeynaysan nabigiina wuu idin digay digitaankiisina waad qaadan weyseen arintanina waa cadaabkii uu noo sheegay haddaan laaban wayno ilaahay aan aadi wayno oo nabiga aan rumayn wayno waana loo yaaba waana noo dhamaatay dabadeedna waa isku soo bixeen dumarkii iyo odayaashii iyo caruurtii kulli way isku soo bixeen markaasay dhar duluf ay wada xirteen kadibna dumarkii iyo caruurtii ay kala geeyeen odayaashii kulli banaanka loo baxay xoolihii dhan baa banaanka la geeyay ilaahay ayaa gacmaha loo wada taag dhammaantood way ooyeen way tadarruceen ilaahay bay u laabteen habeen iyo dharaarba ilaahay ayay baryeen qoom Yunus markii ay garteen in cadaabkii ku dhow yahay ayaa ilaahay u laabteen ilaahay markii uu arkay xaaladda ay sameeyeen ayaa ilaahay ka toobad aqbalay dhammaantoodna koodii yara iyo koodii weynaana nabi Yunus waa ay rumeeyeen ilaahayna waa ay rumeeyeen oo waa ay laabteen laakiin nabiyullaahi Yunus xaaladaasi muu oga oo waa uu ka maqan yahay markii nabiyullaahi Yunus uu soo caafimaaday wanaagsanaaday oo jirkiisii uu soo laabtay caafimaad dareemay ayaa uu soo dhaqaaqay waxaana uu soo aaday halkii uu kaga tagay reetulkii oo Naynawa ahayd dabadeedna markii uu saa u soo galayay ayaa ay arkeen dhammaantoodna waa ay soo baxeen waana ay soo dhaweeyeen ayagoo oranayo soo dhawow nabiga ilaahayow waanu ku rumaynay aad buu la yaabay nabiyullaahi Yunus waxa dhacay iyo sida ilaahay tolkii uu u hanuuniyay iyo sidii asagaba ilaahay uu soo badbaadiyay kadibna ilaahay ayaa u mahadnaqay ilaahay quraankiisa waa kan kaga waramay asagoo oranayo falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha iimanuha illa qawma Yunus لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ما يرميس تولو سيدي أي رميسي تولو ذي قوم يونس يعني الدون مقالة كلية نبي الله دري dabadeetna dhammaanteed ilaahay rumaysay waxa laga hayaa tuulada ama waxa weeye magaaladaas ay qoom Yunus deganaayeen ma jirto magaalo kale oo inta quraanka lagu sheegay dhammaantood mar qorantay wada islaameen ilaahay rumeeyay nabigii ilaahay u soo dirana raacay oo fariintiisi ajiibay oo qaybay oo aqbalay ma jirto illa qoom Yunus maahane ilaahay markii rumeeyeen baa ilaahay wuxuu ka fayday cadaabkii duleyn lahaa يعني حالات أدق بكون على هذا السن إلهي أصلا عقلك أسوء عليه هنا مكا أيجا هذا بس حبيال الكاس أيام كسو جبيننا قصة نبي الله يونس
iyo reetulkii dhexmartay iyo sidii ilaahay oo ayaga qalbigooda u soo hanuuniyey iyo sidii ilaahay uu u badbaadiyey nabiyullaahi yuunus kadib markii uu nabirigii caloosha ku liqay. haddaad halkan nala soo gaartay aad baad u mahadsan tahay daawashada muuqaalka aad daawatay waan kaaga mahad celinayna waqtiga qaaliga channelka subscribe saar saaxiibka la wadaag aad baad u mahadsan tahay la soco muuqaalka xigo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.